maxaa wacdaraha adduunka soo jiray waayooda warkooda la idhamiyey maxaa waran layla doonay habeennima layla waayayoo nasiibkay kuwa baristay walaalkaynimaanu haystay muxuu waday fadhiistay ruuxan wehelkayga mooday ka qayb galay weerarkayga ruuxan la wadaagay onto ku wiirsaday waxyeeladayda. Number 1. Number 2. بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان ومضى إسلام كميل كسيدة في ذلك شوكتا وان سلامية قفل بنا وقت جوتها يبان كل سلامية هبين مالين الصبح قفل بحلي جوتها يلا هو ناتشيو إن ما أنت ولا شيء محيك هذا لربطها ولا شيء رحمة ورطة دين سودا وهذا قاع مفرم سودا وهذا ولا شيء رحمة محاوي ما أنت كمرضى ماشي يدين كويس شبال مياه لباح مياه ورابيال مياه يس soomaaliyada waraabayaal noqotay marka waa inaan dhogor waraaba idiin soo dhigno sidaan caqliga ma jirte marka axbaabi waxaan horta ka hadlayaa mawduucayga intaan ka boodin waan iska taraaraxaa islaan hadal badan baan ahay intaan warku meel kale ila gelin waxaan ka hadlayaa maanta oon xalay wallahi aad iyo aad uga siixan waayay maamo Soomaaliyeed magaceeda la dhaho Saafi Sheekh Cumar ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan u rajaynayaa cimri dheer iyo caafimaad iyo cibaado soo barnoosiyo iyadii awlaadeedii iyo xajiyadaba oo hadda ka hor dhibaato lagu soo gaarsiiyay wadankii hooyo waxaan ka daawaday shalay anoo iskaalkan boodboodayo intaan sportka ka yara imaaday halkan fadhiya ayaa waxaan arkay youtube-ka farxiyo cabsiya wuxuu ii yahay subscribe youtube badan baa subscribe ya laakiin inta badan calashaan ku xidhanay waan daawada video ii soo dhacay video markuu ii soo dhacay furayna xaaladan la kulmay subxaanallah wallahi aad baan uga qalbi xumooday maamadan ilaahay subxaanahu wa ta'aala cimri iyo caafimaad ha siiyo ayada kaligeedna ma hooyooyin badan oo waxa jiro arrimahan boqolaal la aamusan sababtay ula aamusan yihiin waxay tahay in ay isleeyihiin de dhaqankii ayooyinkoon horta ayeeyooyinkeen iyo awoyaasheen aan iska cafino axbaabi Soomaali weyn meel kastoo joogtaan sababtoo dhaqanka hore ee laynagu soo barbaariyay awoyaasheen iyo aabayaasheen iyo intii ka soo horeysay awoyaasheen iyo kuwii ka soo horeeyay waa dhaqan aad u adag gabadh baa la dhibaataynayaa waxaa la dhahayaa ha sheegin wixii wayba kugu dhaceena maxaad ka sheegaysaa hana ceebeynin samiicadeena ha dilin waa sidan dad ba arrintaas u arka marka hadda ka hor dad ay ka hadlayeen dhihi jiray naagihii way waasheen naagihii sidan ma aha xaalad jirta ma aha dadka inaan indhaha la isqabto horta maamadan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan u rajaynayaa maanta waxa aan u qaban karnay ma jirto oo aan ahayn inaan garab istaagno iyo in xaqeedii lala raadiyo maanta iyadu waa hooyo waxa awlaad bay dhashay alxamdulillahi rabbil caalamiin ay soo korisay dadka qaar shalay waxaan arkaya commentiga markaan fiiriyay dhahayo oo intaasoo sanaba way aamusnayd way kala jabeen dadka kolley meesha ku jiray aan arkay commentiyadooda qaar waxay dhahayaan maxay intaasoo sanaba aamusnayd hadda ka sheegaysaa waa qof weyn caruurteeda hadda la ceebaynayaayo caruurteeda damage ku dhacaya caruurteeda yaa guursanaya dadka qaarna waxaan arkaya dhahayo may u sheegto maxadan xilligii dawladda haddayba joogtay wadda waqtin dawladdu dhulku nabad yahay joogtay may sheegto waxay u sheegi weysay dawladda waxaa ku xoog weynaa caadadna oo taqaaliilna maxaa waaye dhaqanka soo jireenka ah oo Soomaaliyeed oo foosha xun kaas ayaa hortaagnaa dawladda ka xoog badnaa ana idinka jawaabaya taas okay dadka dhahayo maxaa la dhahaa maxaad hadda u sheegaysaa ilmahaaga yaa guursanayo ilmahaaga ceeb baa u imanayso waad mahadsan tahay adiguna ra'yigaagaad ka hadashay halkaasna anigu kolley haddii qofka dadka sidaas soo qorayayna han jawaab yar siiyo hooyaan ahay anigu iyadna waa hooyo kasta oo Soomaaliyeed oo damiirlina waa inay dareento hooyadani ma aha inay ka fikirtay hadda ilmahaaga iyo guur iyo ilmaha wax may sameeynin dambi may sameeynin hooyadana dambi may sameeynin ninka dhibaatadan geystay waa dadka horta maxay isla indhatiraan wallahi waad ka yaabaysaa qof ayaa dhibaatadan geystay oo qof miskiina oo ceebka saliimo halkaa joogta inan yaroo masaakiin oo dhowr iyo 10 jira oo cawrad ah oo waliba waad ogtahay dhaqanadeena Soomaalida fircooniga ka dhaqanada xun buu kamid yahay inta nima la isugu yeeray waraabayaal la rifay waa dareemi kartaan okay
maanta marka mawduucay hadda intaan ka bixin maxay intaan calashan hadalku ila taraarixin halka ay ka hadlayso oo leedihiin caruurteeda yaa sidan dhahayo wali hooyadan caruurteeda ay daafacaysaa ma isweydiisan sababtay ku daafacayso ragga ninkan mooyaane kuwa kale ma taqaana wejigooda afartan nin ee kale ninkan u soo watay wejiyadooda ma taqaano maadaama wejiyadooda aqoon waxay tirtiin hadalkeeda si qofka hadalkiisa si fiican loo dhowxaa okay London inay ila degan yihiin guryaha dariskayga degan yihiin xataa ma aqaani bay ku tiri okay maxay ka cabsanaysaa marka bal isweydiiya waxay ka cabsanayso kulli hoos bad ku ana hadda idinka jawaabayo okay idinkuna kulli ilaaha waad la soo qaybsanaysan insha Allah sababta ay uga cabsanaysi waxa weeyaan in wiil ay dhashay oo nimankii waxa iyada ku sameeyay dhibaatada u soo geystay gabadh aw dhalay oo guursado ama aw gabadheedaba guursado ta ay ka fikiraysi waa taas ilmaheeda talow man ninkaas nimankii waxa soo sameeyay mid waaba taqaanay afartii kale talow ilmaha aad dhashay fircan wax ma la wadaagi doonaan ay ka wada ya waa hooyo iyadoo yar la soo dhibaateeyay waa hooyo iyadoo yar oo masaakiin oo gabadhu markay dambi lahayn ay gabadh yar oo nadiif tahay waa iska malaa'ig la soo rafaadsaday oo la soo googoosto waraaba soo helay ya hadaladeeda maamada waxa kamid ah ma jeclaan inaa fiidiyaha horta dadka soo qaato dadba fiidiyada dadka soo jarjaro ila dhageystan no qofkii rabi channelka la soo galiyo iyo dadka la kala ordaha ka dhageysta laakiin anu damirkaygu ma sinaan soo googooyo fiidiyo dadka leeyahay soo galiyo channelkay wayna igu adag tahay marka waxa dhacday in markay tiri hooyadaasi shalay anagoo ku saaran gaariga 2 qof miyay tiri 3 qof ayuu waxay tiri hadana soo maray meel hotel ah ka bacdina rag kale soo watay asxaabta qaaliga hees ba igu soo dhacday waqti meel la heesa ma ahayn wax lagu heesana ma laakiin waxyaabaha qaar waxa jira ciil iyo cara ka keenayso aniga markaan waxyaabahan oo kale xamaasad leh oo dhibaatooyinka ama loo geysanayo cirqeena iyo jinsiyadeena iyo hablaha Soomaaliyeed iyo dalkeena markaan arko wallahi qiira ay qaato subhanallah waxbaana igu soo dhaco ama waxaan ugu markaas igu soo dhaco midna intaan badan iska sameeyo oon qoro meel kastaan maraya kijadan maraya gurigan hagaajinaya wax badan oo wallahi dadka qaar ay dhahay ilaahayeen wow intaas aan alifo ayaan hadana meesha ku ilaawa laakiin shalay waxa igu soo dhacday hees hadda ka hor baan maqlay waqti adigoo dhowr sano 12 sano ka hor bay ahayd heesta waxa qaadan malaynayaa haddii aan qaldanayn ma hubo 100% laakiin waxa qaadan malaynayaa Saada Cali iyo Khatra Daahir waxa loo qaaday maan maqlay heestaas xilligii dawladdiisa Yadbar adigu heestu waxay dhahdaa laakiin heestu hadda dumarka hadda joogayna taabsanaysa anu tii siyaasadda iyo kaartooyinka soo sameeyay mid hadda maxay taagan ayayba khusaysaabo علشان ما مقاشين بيعل نبوا دنعي ولا فلو بيعل نبوا دنعي ولا فلو حلقة وضع إن مثلا حديد ضد كان مهما تقررين أنا سفي عنه وفسره علبة بيكرهتتي وحلقة يبا إن جورجا أو قيب كونا كلا كويالو كونا كلا ضد علشان كونا يال كلا ضد كلا كويالي أي يقول علك بيكسر دون حقيقة قوة دقائق ينقفل بمشي وجهده كي ما جورجي سوها مركب بيعل نبوا دنعي ولا فلو تاسوي مهما أساسا لو كيري مركب يا أحبابي وهستاس waxay ugu soo dhacday ahayd walla qalay sidiisa hilibkaygi wadato waxyahayga qalanbaad warabaha u logto dhaman habar dugaag baad wacdayoodu yeedho ku weersad lahayd oo noloshaba ha weydeen oo baan wadkaygi iyo waqtigaygu galino waynu hooydaaye waxba ilamaad hadhine waayo waxay tiri adduunyada maalintaas inaan ka dhintay ayaan moodayay calashan qof dhintay adduunyada ka dhintay ayaan ahaa haddana nool oo taagan waxa kale oo heestan igu soo riday markay tiri hotelku soo maray ayuu rag ka soo kaxeeyay calashan uu habar wacday waraabuhu markuu wax dilo neef cuno wuxuu u habar wacdaa habar dugaag oo kale oo dhan heestan marka bitabti way isquseeyaan wayna waaba bitabti sidanaaba loogu talagalay aniga ilata markaan u fanaanad may gabayana may laakiin waxba iska xamaasadu markay qaaday igu soo dhac waasaan ii sheeg marka axbaabi horta maamada waxa leeyahay qalbiga la qaboojiyo hooyaan hay waan dareemi karaa waxa ay maanta u cabsanaysina wali waa ilmaheeda oo uga cabsanayso wixii iyada dhibaatada u geysto soo dhibaateeyay in ay wali nolol
iyo mustaqbal la sii wadaagaan ama ilmaha ay dhashay ama ilmaha ay dhashayba ay la wadaagaan kuwaas marka si khaldan Soomaaliya ay waxba u fahmina dadka commentiyada soo qorqorayay ayaan la hadlayaa oo ka hadlayay commentigaas YouTube channelka walaasheen Farxiyo Cabsi marka waxaan leenahay habar yar oo iyo Soomaaliyeed baa tahay ma sha Allah ilaahay ku xifdiyo adiga iyo family-gaagaba aakhiro iyo adduunba ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan aaminsanahay insha Allah inuu ilaahay ku aargayn doono adiga iyo kuwa kale maxadanay qarsoonba marka maamadan hadaladeeda haddaan hal mar dib ugu yara laabto dadka sida khaldan wuxuu fahmayaan weli rabaa inaan la sii hadlo waxaa laga yaabaa gabadh baa waxay soo qortay ma rabo inaan magaceeda soo qaato commentiga waxay tiri bay tiri alla maxaa dhibaato qarsoon aniga iyo kuwa kaloo badanba waayo waxaan dareemay gabadhaas iyada lafteeda inay dhibaato kusoo dhacday laakiin ay aamusan tahay marka waxay u noqonaysaa cashar nimanka dhibaatooyinka soo sameeyey welina isqarinaya oo aamusan oo dhahaya cidi kuma oga yaa akhay cidi kuma oga intaas way aamusan haddana reereyba guursatay oo waxbay dhalashay maxaa kaa galay saasay ku aamusaysaa ku fikirayo ilaahay u toobageen oo cafis weydiista dhibaatadii aad geysateen hablaha yar u geysateen hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala cafis weydiista dadkii aad dhibaataysteenna I don't know kolley magtooda inaa laydinku leeyahay anuu malaynayaa sheekh ma ihii kolley idin xakumi maaye laakiin siaad uga baxaysaan idinka idin taalla cashara idiin noqoto tani yaa taasi waa taas ta kale oo rabo inaan ka hadla iyadana waxa weeyaan gabadh fanaanad ah la dhaho Deeqa Afrow gabadhaasi asxaabta waxaa arkaya dad youtubero tiro badan oo soo qaatay oo qof walba qayb qaar uga hadlayo walaalayaal horta idinku dadkiina youtuberka inta badan haddii aan su'aalina weydiiyo youtuber waan wada nahay inkastoo youtube-ka dee wali wax iska normal yar yahay waa youtube khatar oo caan oo dee la yaqaana aan ahayn haddana waxaan jecelahay kolley wixii halkan youtube-keer baan waxaan u furtay maaha inaan ku raadiyo views wixii aan ra'yi igu jira inaan ama si arqaanin oo asxaabtayda dadkayga bulshada ugu soo gudbiyo walaalahay wixii laga faa'iideeyay dee wixii aan laga faa'iideeyna qashinkiisa ka rid sababtoo aan insaan baan ahay waa maqaldame waa ilaahay waxyaabo badan ku qaldanaan kara waxaan arkay dad dhahayo oo xaraabo ka dhigtay Deeqa Afrow walaalay san maantana cawaan bay ku geysay ma dharkii baa ku culaysiyay sheekadu saad moodaysaan maaha gabadhani waa xanuunsan tahay anigu saan u fahmay waa sheekadii hadda maamada nii sheegay biicel waa nimba dhinacuu rabo ula fulaa waa bitabtiti qof walba sibuu uga hadlay qof walbana sibuu wax u fahmay anigu waxaan u fahmay gabadhan inay tahay gabadh xanuunsan garab iyo caawimaadna inooga baahan tahay nin waalan walaalkii waxa xidhan ma maqli jirteen gabadhani quraan saar bay u baahan tahay biliis hala qabto hala quraan saaro hala cilaajiyo dad muslimaan nahay Soomaaliya ma ayna isku wiirsano inaku marka qof la faraxumeeyana waxaan dhahaynaa gabadh baa la faraxumeeysa qof hebel baa la dilay qofkeennii oo dhibaataysan oo u jeedana ma qabanayna xaraab iyo shaxtar raaban ka sii dhigaraynaa dad maskaxdayna inaga dhanaabad moodayna maskaxdayna inooga jira wallahi waad u jeedaan gabadhan inay xanuunsan tahay mar leedahay dhinta geed hal ay saaro waayo waxa la yiraahdo qofku haduu xaaladiisu okay ahayn mudooyin buu soo xidhxaytaa marka dad gabadhan dadka ka agdhow oo Soomaalida oo muslimka ah yaa oo magaca Soomaaliyeed la sheegto u dhow oo yaqaan anu ma aqaan meel degan tahay gabadhan garab ha loo noqdo garab ha la siiyo yaa oo gabadhan ayadoo jinsiyad iyo diin iyo dhaqan iyo iimaan leh oo dad Soomaaliyeed dhaleen oo meesha ka soo jeedaad ogtihiin oo gabar Soomaaliyeed ay Soomaali ka soo jeedo ma idinla tahay inuu damiirkeedu siin lahaa in ay nin cawaan oo mara caleen dabada u saaran tahay intay u tagto ay dhihilahayd no ayadoo taqaana rag Soomaaliyeed oo waliba ay fanaanad tahay nooga aqoon badan tahay intaasoo wiiloo dhalinyaro Soomaalida ay taqaano ma idinla tahay inay cawaan futada oo jirfale inay ka raacayso waxaas wax aqliga galay maaha gabadhan kolley codkaygan hadduu meel gaadho I don't know meeshu gaari doono laakiin kolley wax social media la gelinayo waa iska orda laakiin dadka u dhow oo ka ag dhow waxaan ka codsan lahaa please asxaabtayda qaaliga idinkuna isi share garay in gabadhan cilaash la geeyo please waa codsi walaaltinimo qofkeenu intuu dhibaataysan yahay inagu dhex jirana wax u qabano mooch waxayna inoo diidan inaan ka sii xaraabaysano afar social media fadhila si kala ordaan ma aha gabadhaas waxaan idin dhihi lahaa way xanuunsan tahay warkeeda iyo qaadqaadkeeda iyo Deeqa Santar iyo fiidiyaasheeda wareejinaysaan in cawaanka soo garab dhigaysana la iska dhaaf hana la qabto qof sidee inagu xataa keeni xanuunsan ama asturanayno walaa xawla walaa quwwata illa billah
waxa inoo qarsanaan ma garanayo Soomaaliyeey balse intaad isku fiirsataan waxaad fiirsaan waxa ka dhex socda bulshadeena bee'ada aan nahay oo Soomaali dhexdeena waxa ka socda bal fiiriya TikTok waxa la dhaho hooyo sinta ruuxaysa inan yaro halkay u qurux badnayd soo fayday oo ruuxaysa oo maxaydan la yiri uu mooji hablaha yareerna waxaan leeyahay oo Soomaaliyeed habar yaryaa ilaahayna subxaanahu wa ta'ala idin abuuray ka baqa hooyo aaba idin dhalay waxa la idin soo koriyay kursiin qurux badan waxa la idin ku soo barbaariyay diinta ma sha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoogu nimceeyay islaamnimada ayaa mahad iska leh alxamdulillah binimcati islaam habar yaryaal dhexdiin aad ruuxaysaan iyo naasiinaad qaawinaysaan iska dhaafa duni aakhirsan baan ku jirnaa waxaan asla ruuxaysaan ma garanayo talabaadee kale gabadh walba waxay jeceshahay in hanti laga dhiibo oo wiil guursado oo ay mustaqbal bari noqoto hooyay macaanay gabadh halkaas hilib halkaas babliga ruuxanaya ruuxmaya oo gabadh halkaas isruuxaysa waa ay reerka guursanaya ee soo dhaxgalaysa familiga ku guursanaya habar yar oo ninka ka rabtid waxay ku dhahayaan gabadhan sawtii shalay isruuxaysay ma haya shoosh naagta caanka oo meel walba laga yaqaan jirkeeda halkaas ruuxda miyaad noo keentay marka kii ku jeclaay mustaqbalka ka raadinaya iyo familkiiba niyad xumo iyo ceeb iyo fadiixad ha u soo jeedina iska dhaafa waxaad sameeynaysan gabdho okay oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka baqa bal idinku dadkiina aqliga leh oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala aqliga siiyo u fiirsada beedeedna waxa ka socdo oo ah ina yaro isruuxaysa oo isa soo qaawiso halkii u qurux badnayd banaanka keentay oo faaxisho soo qaawisay iyo waxa lagu leeyahay dilal qarsoon masooman xayaal ma soo jeestayaal ah oo dadka xasuuqaya iyo xasuuqayaan hooyadii aabihii in adeerkii in abtigii dad masaakiina dad bulshada magac ku dhexleh dad madaxa oo dalka wax ka qaban lahaa ayay xasuuqayaan nin baa madax buu rabaa kursi buu rabaa inuu ku fadhiisto fakata dareeraha daris ku tagaya dabadu galinaya wuxuu leeyahay adaan garabku saaray meesha nin yahow intaas ma hagaagaysa intaasan kuu goyn doonaa ana intaan meesha ku fadhiya ana caantuuge adna intaasan kuu saxeexayaa ii qabo Soomaaliya ilaahayna subxaanahu wa ta'ala intaad ka baqdaan mawduucyadii hore oo dhan aan ka soo hadlay waan ka soo baxayaa laana hadalkaygu mawduucyo badan buu taabsanayaa siyaasada ku jiro hadduu rabo anuu siyaasadin kastoon ahayn laakiin saas isu waa laga yaabaa inuu saas isku bedelo hadalkaygu bal waxaad u fiirsataan dalka Soomaaliya yaa iska leh Soomaaliya oo dhan ma Soomaali baa wadale mise dad gaar ah leh anu waa sheekadan la yaabay Soomaaliya ma Soomaali baa leh waa dhaxalkii awowgeen oo awowyaasheenii hore dadkii u soo dhibaatooday dalkay u soo rideen dhiigga u soo cabeen Soomaali baa wadale mise dad dana gaar ah labaale oo siyaasiyiin waa sheekada iskaga qasan baan u maleeyay Soomaalida Soomaali baa leh meel kasta ay joogto Soomaali baa leh qariirada Soomaaliya meel kasta ay ku taalo Soomaali baa leh marka dalkeena inaga iska leh inta damiirka leh isku tashta inta damiirka leh isku tashto dalkeena si aad ku ridan lahayn ku rita haddii kale ina yaro social media isruuxaysa hooyo la soo dhibaateeyay maxay qaar xanuunsan oo meel soo fadhiisanaya ku mashquula culimada Soomaaliyeedna waxaan leeyahay please kollayba Soomaaliya cadow baa kala googooyay bal gobol walba intuu dhinac iskugu tashto hal mar oo uu sameeyo calaashan abaabulo inta quraan la isa saaro bal quraan aan akhrisana xaaladda aan ku soconay xaalad degan ma aha cadar rabbi baa inagu dhacaysa waabana inagu dhacdan malanaya wuxuu dalkeen u deginaya cadowgii noo kala googoosanaya sababtoo dadii waxaan nahay iyagii aan isku roonayn dad waxaan nahay iyagii aanan ceebtoodii is asturaynin marka axbaabi warka waan igu badiyay baan u malaynayaa hadalkayga intaan aan kusoo koobayaa wixii kollay aan qalday bini aadan baan ahay hadalkaygu qalqaloocsama carabkan waxyaabo badan oo waxa laga yaabaa in cajab gelin aan ka hadlo ha laga raali ahaado qofkay dhibto wixii wanaagsan inta wanaagsan ka qaata inta kalena qashinka iska geeya meel kastoo joogtaana waxaan ilaahay rabbi subxaanahu wa ta'ala idinku xiftiyo aad iyo aad baan idin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh